haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daandurey. wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkada weydii dhakhtarka oo markii uu yahay Dr. Shaafici Aadan Dirar oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalliinka wuxuuna ka howlgalaa magaalada Muqdisho. Dhakhtarku waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha. bismillah, magacaygu waa Axmed Maxamed waxaan joogaa magaalada Xamar. Dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo xamiitida aad bay xanuunada Soomaalida hadda waayahan dhakhtarka aad baa u sameeyaa oo Soomaalida way ku badan tahay sidaad aragnay. maxaa sababa dumarka iyo markii la fiiriyo dumarka aad wadana ku badan yihiin maxaa ku sabab in dumarku bataan? waa mahadsan tahay. caadiyan waa sax cudurrada oo xamiitida dumarka bay ku badan yihiin marka loo eego ragga, sababtoo ah markii 100 dumara ku dhacdo baa 25 nina ay ku dhacdaa, ama 3 dumar marka ku dhacdo ama 4 dumar marka ku dhacdo 1 nina laga helaa. dumarka marka sababta ugu badan yihiin waxa kamid ah oo risk factors waxyaabo la yiraahdo ama waxyaabo sababa in oo dhagxaanta xamiitida ay ku sameeyaan dumarka. waxa kamid dumarnimada lafteeda baa waxyaabaha fududeeya kamid ah. waxa kamid ah dhalmada badan baa kamid ah oo qofka dumarka midda kale intay ka ilmo badan tahay waa riskeeda ama inay ku dhaco marka dhagxaan xamiitida ugu sameeyaan way uga badan tahay. waxa kale oo jira da'dana way la xiriirtaa oo dumarka markay 40 ku dhawaadaan iyagana probability-ga ama chance-ka ay ugu dhacay uu ka badan yahay. waxa kale oo jira ayilka buurnida dumarka ayilan ayagana sidoo kale waa risk factorska ama waxyaabaha ku badiya kamid tahay. marka dumarku waxay qofkii isku darsada dumarnimadii ilmo badan dhashay ayilan waxyaabahaas markay isbiirsadaan waa yani probability ay xamiitida dhagxaan ugu samayso way badan tahay. alxamdulillah hadda waa kale waxay noqotay waxa aad u fudud oo waxaan xusuustaa 2013 dibadii meelahaas oo la aadi jiray. hadda wadanka gudihiisa baa laga soo bilaabo 2014 bilowgeeda ilaa hadda wadanka gudihiisa aan ku sameynaa bilcagsi. dad badan oo dibadda nooga yimaada Mareykan dad baa iga yimid Mareykan, Ingiriiska, iska daa wadamada dariska dad degan baa kharash yani sanada daraadeed iyo kharashka yar baa wadanka la yimaada maalin walba aan la sameeyo wax fududna weeye. marka taladeeda waxa weeye qofka marka hadii lagu sheego oo dhagxaanta xamiitida lagu sheego waxa fiican problemka inay iska xaliyaan, sababtoo ah hadii ay iska daystaan waxyaabo badan oo khatar ah oo dhib u keeni kara bay keeni kartaan. waxaa kamid infectionka kamid ah ama caabuqa iyo bararka way ku dilaaci kartaa qofkii. dhagxaanta laftooda waa inta meeshii ay ku jiraan inta ka durkaan bay tuubooyinka beergeli karaan oo qofkii dhan indhihiisa waxay noqonayaan cagaar bay noqonayaan, kaadidiisa sidoo kale iyadana cagaar bay noqonaysaa, saxaradiisa cadaan bay noqonaysaa, cunun badan buu yeelanayaa ilaa marmarka qaarkood ay dhagxaanta xiraan tuubooyinka hataa ka imaanhaya qanjirka ganaca oo qofku ku sababi karaa in uu cudur khatar oo pancreatitis la yiraahdo hataa qofku uu naftiisa la waayi karo. marka talada aan soo jeedinayo waxa weeye wax fudud weeye hadii marka la ogaado oo qofku iska sameeyo saas baana u fudud una kharash yar wax khatarana ma gelaya. bismillahi rahmaani rahiim. magacaygu waxaa la yiraahdaa Bile Maxamed Cusmaan, waxaana joogaa magaalada Kismaayo. waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto dhakhtarka aan weydiiyo su'aashan maxaa sababo ragga badanaa waxay heernada oo kale oo soo gashay xiniya
eernada caadiyan oo tan khaasatan xiniya soo gashay inguinalka la yiraahdo raggay ku badan tahay, khaasatan waxay ku badan tahay dhalinyarada iyo dadka da'da ah. oo dhalinyarada maxaa ku keena kuwo laba loo kala qaybiyaa, kuwo oo qofku uu ku dhasho oo congenital la yiraahdo iyo kuwo oo qofku eerno ku samaysantay. caadiyan waxyaabaha keena waxaa kamid ah qofka cadaadiska calooshiisa gudihiisa oo bata. see ku badan karaa qof hadduu wax culaysa qaado, hadduuba dadka calooshoodu caadiyan ay fadhido, ma fahantay, oo markay musqusha aadahayaan ama kaadu dhibayso jiiranahaya, taasaa waxay keenaysaa in uu bato cadaadiskii caloosha gudaheeda. marka ay furanto xub kamid ah, xub oo dahaarahayay ama daboolahayay inguinal canalka yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka keliyu soo saarahayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo. waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkana weydiye dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir, oo ah dhakhtar xanuunada guud ee qalliinka ah, waxaana uu ka howlgalaa magaalada Muqdisho. barnaamijkana dhegeystayaal waxaan u soo diyaariyey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.